Had ka hor baa macallin wuxuu u dhiibay ardaydiisa mid kastoo ka mid ah caag nus litir oo biyo miisaxa ah, wuxuuna dhahay, kor u haaya, isla markaana wuxuu weydiiyey, ma idinku jira qof uu culays ku haayo? Waxay dhaheen maya. Macallinkii cashirkiisuu sii watay, xoogaa markay ka soo wareegtay buu wuxuu yidhi, haye, haddana, waxay ku jawaabeen, gacantaana yara daashay. Kadibna wuxuu yidhi, haddaba waxaan rabaa inaan idiin sheego, haddaa maalin dhan hayso, waa dhib ka sii badan. Waxay isku beddelay xanuun iyo waxaan loo adkaysan karin. Bil iyo bilana warkeed badaa. Taasna waxay ku tusee wax yar oo fudeed haddaa waqti badan hayso inay dhib isku beddelay. Haddaba nolosha walwalkeeda iyo dhibka ku soo mara iyo waxa qalbiga ku hayso oo ku culeysyaba waxa u baahan tahay oo xaq u leedahay inaad iska tuurto oo ka nasatid. Haddaba sheekay keentaahe. Hadda ka hor baa nin xakiim wuxuu jeclaystay inuu ardaydiisa cafiska iyo qalbi nadiifnimada uu cashir ay weligood iloobin uu ka siiyo. Ardaydiisa xoogaa ilaa tobneeye isku ahaayeen buu ku yidhi, horta ma jiraa dad aa neceb tihiin oo idin dhibay ama idin dhaawacay ama idin dulmiyo oo qalbiga ku haysiin? Waxay ku jawaabeen haa. Xakiimkii baa wuxuu yidhi, haddaba arday kasta waxaan ka rabaa gurigiisa markuu aado inuu ka fakaro meeqa qof aa wax ka halaysay, meeqa waaya tiradooda. Intay tiradooda soo baxdo oo baradhe ah suuqa ka soo gata, baradhe kastana qofka aa ciilka u qabto magaciisa ku qorqor. Kadibna box soo geliya, berina halay keeno. Waxay dhaheen haye. Guryahoodii markay tageen, mid waxa u soo baxay in laga rabo 2 baradho, koo kale 5 baradho, xariif kalena 3 u soo baxday. Qof kasta wuu soo gaday, magacna wuu ku soo qorqoray. Xakiimkoodii macallinkoodii ahaana waa u imaadeen. Waxayna dhaheen, waa soo gadnay, magacyaalna waa ku soo qorqornay, waana soo box garaynay. Haddaba maxaa ku soo binaa ku xigo? Wuxuu ugu jawaabay, waxaa idinka rabaa inaad sidaan 7 beri marna aydan ka ag fogaanin oo meel kasta u sidataan. Waa iska baxeen ardaydii iyo kooyaaban. War ileen arbacooy. Xakiimku muxuu yidhi, yaa ardaydii waaba yaabeenba. Shalama heddaraade ka naqatay. Waaga markuu bariyo, hee, ilaa gabalka markuu dhaco, hee, kiiska baradhada hala sidsido. 3 beri kadib waa daaleen. Xakiimka ay u laabteen. Waxay ku dhaheen, waa daalnay bisee. Wuxuu ugu jawaabay maya. Ballanteena waxay ahayd 7 beri. Hala gaaro. Maalintii 5aad iyo 6aad baradhadii waxay bilowday qurun iyo ur aan loo adkaysan karin. Way soo laabteen waxayna dhaheen, bisee xakiimow, dad ma ag istaagi karno. Ur oo u adkaysan la'nahay wallahi. Wuxuu dhahay, wada kiiska baradhada ah. Waqtigaa ballanayna isku keena. Maalintii 7aad waa la isku imaaday. Qof kastana boxkiisa soo wato. Mid sanka xirtay korona mahaya. Ur dartiis. Koo labo hooyo. Mid koo kalooba dhibban u adkaysan la urka. Baradhada kasoo kamkamooyo. Xakiimkii wuxuu dhahay, baradhadan waa dadka aan neceb tihiin oo idin dhibay soo maaha. Waxaa rabtiin inaad ka aarsataan, qalbigana ku haysaan ilaa aad meel ka saartaan. 7 beri aa qaadi weyseen. Sidee qalbigiina karaahiyo, xaasidnimo, xiqdi iyo qurun ugu haysaan? Uguna quuri weyseen inaad wasaqda ka tuurtaan oo iska cafisaan ama u cudur daartaan. Cashir ay weligood iloobin ay u noqotay. Waxay bilaabeen inay markasta qalbigooda nadaafadiisa ka fakaraan, wasaqna ka ilaashadaan. Haddaba waxaa lagu jiraa Ramadaan, weliba waxaa lagu jiraa 10kii dambe. Qof kasta oo qalbiga aad ku hayso iska cafi, adna Ilaahay cafis weydiiso. Ramadaan kariim.